haddaba iminka waxaynu u galaynaa falanqayn ku saabsan ciyaarahan ka socda Cameroon ee la isla soo gaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd waxa stuudiyaha igula sugan wariyaha Maxamed Axmed Deysane oo BBC ciyaaraha u falanqeeya waxa sidoo kale khadka magaalada Yaoundé ku jira Maxamed Xaraare waaya Xaraare adaan kugu bilaabaya ciyaartii xalay waa daawanaysa garoonkaad ku sugnayd ma la oran karaa Cameroon in aysan ka faa'iideysan qaybtii hore ciyaarta oo ay gacan sare lahayd مولد هذا أمها تسنتهاي كامرون وصح كميسن فائديسن إني قعنص الرئيس كلية معها لكن سيدي دبا وحنو مقليني مالين كهر إن معلنك مصر كارلوس كويرس ودهيي وحنو هيسنا قرشة إساق مركا وحوكو تلوامي إنو يهي هلا عرارو هلا عيارو لكن waxaan isleeyahay dadku maanay fahmin qorshihiisa wuxuu ahaa sida iminka la isla qirayo in uu ciyaarta gaarsiiyo ilaa xilliga ugu dambayso waxaanu arkaynaa weeraryahankiisa inaanay soo degaynin ee mar walba joogayeen difaaca Cameroon si ay u mashquuliyaan oo Cameroon looga celiyo goolal kubadaha dhaadheer si loogu geeyo Vincent Abubakar oo aanu aad ugu naqaano inuu madax dhaliyo Cameroon waa ay dayacday qorshaha uu watay Carlos Queiroz-na si fiican uma aysan fahmin waxay ahayd inay ciyaarta marka hore u ciyaarto sidii ciyaar dhamaan ku dhamaanaysa 90 daqiiqo oo ay diido in la isla gudbo 90kaas daqiiqo waxaanu ognahay ciyaaro hore oo taariikhduna ay xusaysaa in Masar ay aad ugu wanaagsan tahay gool kulaadka marka uu waqtiga caadiga ah dhamaado way maxamed kugu soo laabanaya Deysane arintaas maxamed oo ka hadlaya anoo ka qabsanaya Masar waxay ku wanaagsan tahay gool kulaadku leeyahay maxamed marka ma moodaa Masaaridu inay difaac ku ciyaarayeen oo ay ku tala galeenba in la isla aado waqti dheeraad ay gool kulaad sida aan la socono Egypt oo ay ku soo tala gashay South Ivory Coast waxay ku soo reebtay gool kulaad ay ku soo reebtay qaybta hore waa laga fiicnay laakiin qaybta dambe waxa u malaysaa inay soo kaceen oo Mohamed Salah xataa oo aan naqino weer isdaba jooga inuu Premier League markuu ka ciyaaray oo qaadi jiray laakiin xalayto inuu ahay nin aan aad loogu jeeyn ka soo hal fursad oo aad u fiican helay waxaan kaloo taas ka garan karnaa ciyaartooygii bedelka lagu keeno Maxamed Allah in lagu bedelay Seed 118 daqiiqo markay mareysay taasoo ay ninkaas la keenay nin rogoor dhalinta aad ugu fiican rogooradii ugu horeysana gool kulaadkii ugu horeysana oo gama goolayaha dhinaca aadaman dhinaca kalena oo ka dhali taasna Xaraare oo ku saxaya ay aad qorshe ay la yimideen in ay goolkooda laga dhalin hadii la gaaro ciyaarta ugu dambeyntiina la gaaran inay ayaga rogoorayaal ku soo baxayaan ay aaminsanayeen wayna ku soo baxeen maxamed Cameroon baa joogtay waa noo soo warrami doontaa laakiin dadka Cameroon ma la oran karaa waxay taageeri doonaan Senegal oo waxay doonayaan in koobka laga qaado Masar bacdama ay reebtay mawlido lama qiyaasi karo runtii lama qiyaasi karo waa sax inay u dhawaadaan Senegal waa lagu sheegi karaa ama lagu tilmaami karaa laakiin xalay way ka duwaneed magaaladan Yaoundé habeenadii ka horeeyay sida ahayd jabaqdu aad ayay u yarayd saaka suuqyada aad looma joogin xitaa meelihii lagu iibin jiray ciyaaraha waa laga dajiyay dharkii lagu iibin jiray iyo qalabkii kale ee ciyaaraha waxay u muuqataa dadka reer Cameroon inay gabi ahaanba ciyaaraha ay ka niyad jabeen garan maayo cidda ay taageeri doonaan xitaa qaar aanu la hadalna waxay sheegeen in ciyaarta berri ee Burkina Faso iyo Cameroon ay garoonkan Ahmadu Ahidjo ay ku kulmi doonaan inaanay aad u imaan doonin waxay leeyihiin ciyaartan hore ayaanu ciyaarnay koobkan markuu bilaabanayay ayaanu Burkina Faso dilay mana aha mar kale inaanu ku soo noqono marka guud ahaan waa dhici karta maadaama Senegal ay uga yara sokayso marka qariidad ahaan la yiraahdo dhanka Masar isla markaana ay Masar guul darro kala kulmeen inay u yimaadaan Senegal laakiin niyad jab weyn ayaa taageerayaasha ee Cameroon magaalada Yaoundé waa kugu soo laabanaya Deysane koobkan hadii ay ku guuleysato Masar Mohamed Salah si shakhsiyan maxay uga dhigan tahay sida aan la socono waxay uga dhigan tahay waxaan la soconaa ciyaartooyga ugu fiicnaa adduunka markii la dhiibay in Mohamed Salah oo Champions League ku guuleystay Premier League ku guuleystay laakiin mid kaliya ka maqnayd inay ahayd wadankiisa inuusan wax u qaadin taasoo lagu siiyay Messi oo koobkii Latin America qaaday hadii uu qaado koobkan Afrika waxaan u maleynayaa Salah inaan marnaba laga hor istaagi karin ciyaartooyga ugu fiican inuu yahay dhaliyaasha ugu weyn numberka 9aad ee Yurub ka ciyaara inuu kamid yahay taas ayaa maanta ka hor taagan Salah waxaana qabaana asiga iyo markay iska hor yimaadeen Mane inay meeshaas ciyaar xoog la ka dhici doonto Egypt isku day doonto koobka inay dib u ceshato way waa ku salaanay Maxamed Xaraare waxa hadda shaashada ka muuqatay Masar wadamada ay la soo ciyaartay ma la oran karaa Masar waxay ka soo gudubtay
meel aad iyo aad u adag oo ma ahayn meel jilicsan ama waddo jilicsan kumaysan imaan halkan. aad iyo aad mawlido haddii aan wax yar raaciyo jawaabtaas uu daysana bixiyey waa sax. maxamed saalax wax weyn ayay u noqon doontaa oo laacibka adduunka inuu noqdo ayay u sahli doontaa, laakiin meel kasta aad ka eegto haddii ayba cid karadhid ama ay wax ku helayso ciyaarahan ay Masar ku ciyaarayso koobka qaramada Afrika waa inuu helaa Carlos Queiroz. qorshihiisa wuu caddaa mar walba sida uu ciyaarayo, xitaa dadka qaarkood waxay sheegayaan gaduudka uu xalaqaatay ama macsaanka uu xalaqaatay inay ku talagal ahayd. labada koox Masar iyo Senegal ee wada ciyaari doona finalka runtii isku wada maanay soo marin. Senegal waxay soo martaa la oran karaa wada aad u sahlan, halka Masar ay soo martay 16kii. Masar ciyaar adag ayay waxay la soo ciyaartay Ivory Coast, waxay kalento quarter finalkiina la kulantay Morocco, iyadoo xalayna Cameroon oo koobkan martigelinaysa ka adkaatay. marka haddii ay koobkan Masar qaado awoodeeda ayay ku qaada ayaa la oran karaa. Senegal dhanka kale 16kii waxaan filayaa inay is arkeen Cape Verde, quarter finalkiina waxay is arkeen Equatorial Guinea, halka ciyaartii ugu dambeysay ay Burkina Faso is arkeen. marka laba wado oo kala jilicsan ayay soo mareen, laakiin siday noqotaba axadda ayaa labadooda ay kala bixi doonaan. daysana adiga iyo maxamed xareer toddobaadkii hore waxaad lahaydeen waxa imaanaysa Masar iyo Senegal ba adigu tiri. maxamedna wuxuu yiri Cameroon iyo waxa imaan doona iyo Senegal. yaa ciyaartan axadda koobka qaadi doona adiga maxamed? aniga aan se ila tahay Egypt ayaan siinayaa, sababta waxaan u siinayaa tababaraha Carlos Queiroz sida uu sheegay maxamed xaraare nin waay aragay inuu yahay. inkastoo saddexda ciyaar ugu dambeysay Senegal ay 8 gool soo dhalisay, Egyptna 2 gool kaliya dhalisay, haddana waxaa u malaysaa anigu Egypt dhinaceedaan aaday. maxamed adiga xaggaagana 30 second. anigana inkastoo sidii aan u saadaaliyey semifinalka aanay u dhicin weli, waxaan isleeyahay marka ugu horeysay inay Senegal koobkan ay guuleysan doonto. midna waan ku darayaa Carlos Queiroz iyo waliba ku-xigeenkiisa casaan baa la siiyey, finalka ma joogi doono. ku-xigeenkiisa 2 jaal ayuu haystaa, isagana ma joogi doono. ku-sii xigeenka ayaa joogi doona. kooxdu ma haysan doonto hoggaan garoonka ku haya oo dhiira geliya. marka waxay ila tahay Senegal oo rabta koobkan inay qaado inay markii ugu horeysa qaadi doonto koobka qaramada Afrika 2021. maxamed xareere aad iyo aad baad u mahadsan tahay. maxamed daysana adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay.